وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم فأعبده لا بالصفة لم تبلغ أو بها معيبا فله رده ومهر مثل. weli waxaan kusoo jiray khuluci masaladaasaan ku istaagnay. walow callaqa hadduu xidho oo biicdaa'i cabdin addoon siintii, wuxuu yihi furitaankaagu wuxuu ku xidhan yahay addoon inaad iska bixiso ood addoon isiiso. biicdaa'i cabdin addoon siintii, wa wasafahu addoonkiina wuu tilmaamay oo bisifati salamin, beecu salamka sifooyinkii shuruuda u ahaa yuu ku tilmaamay oo si uu beecu salam noqon karo yuu u tilmaamay. ila beecu salamka waxaan soo maraynay waa in la tilmaamaa oo da-dii iyo bidhaantii iyo noocii iyo jinsiyadii wixii o dhan waa in laisla sheegaa. marka wixii o dhan buu sheegay, yay sheegtay baan u sheegaa mase haa isagaa sheegay oo wuxuu addoon nooca ah oo mathalan meel fulaan magaalo fulaan kasoo jeedo oo da-diisu saa tahay, adu beecu salamki shuruudiisii sifaadkiisii uu sheegay. fa acdadhu addoonkii bay siisay, islaantii zawjkii bay u keentay addoonkii u tilmaantay. laa bisifa, laakiin sifadii ma wato oo tilmaantii uu sheegtay meesha way ka maqan tahay. addoon calo turki uu yidhi ku madow afrikaanay u keentay, lam tadluq horta ma furmayso. aw amase bihaa, sifadii bay ku keentay oo isagoo sifadii wata, bihaada sifad baa loo celin ayay keentay, laakiin maciiban ceeb leh. falahu wuxuu leeyahay radduhu inuu celiyuu leeyahay, kan ma rabo ceeb buu leeyahay. warkaas muxuu yeelan? wamahru mithlin, mahar mathalna wuu yeelan karaa. waaya meeshaan addoon baa laga dhigahayaa baal muxuua khuluci ciwadkiisii. addoonkii marka labada loo kala qaaday oo midkan hore waxaa weya wuu tilmaamay tilmaam welibana uu waxa kale oo dhan kaga duwanaan karo lagu garan karo oo tilmaantii salamka ahayd buu sheegay. laba mid waa in ay keento isagoo sidiisii oo tilmaantii iyo wixii oo dhan wata isagoo qaadanaya. meehe addoonkii way keentay laakiin sifadii iyo tilmaantii uu sheegay kama muuqato, shuruudii waxbaa ka maqan, gabadhaasi ma furmayso. meehe tilmaantii wuu leeyahay laakiin ceeb baa ku taala, waxoogaa ceeb kalu wataa. midkaasina waxa weeyaan khiyaar buu leeyahay, khiyaarkiisu wuxuu noqonayaa laba midun, inuu maarata mahrumathal iska qaato oo uu celiyo. waxaan ujeedaa khiyaar buu leeyahay, khiyaarkiisu waxa weeyaan maadaama shayga ceeb leeyahay inuu celiyo o yidhi addoon ceebla ma rabine maxaad i siinaysaa? mahru mithlin, mahrumathalkii keen inuu yidhaahdo taana khiyaar buu leeyahay. qowl baa wuxuu leeyahay qiimatuhu saliiman, isagoo fayow ayuu qiimihiisa qaadan. laakiin walow qaala cabdan, addoon unbuu iska yiri, addoon ma uusan tilmaamin oo tilmaani waxba uma sii yeelin. daluqad way furantaa bicabdin, addoon kastay ku furmaysaa. addoon kasta oo loo keeno horta way ku furme, ilaa maqsuuman mid lasoo dhacay weyn fil asax. walahu wuxuuna leeyahay addoonkii kolkay keenta way furmaysaa, mana qaadanayo majhuul buu ahaaye muxuu qaadanayaa? mahru mithlin buu qaadan. addoonka xaggaa la ysaga dhigayaa mahru mithl ayuu qaadanaya madhabka shaaficida wallahu aclam. walow callaqa hadduu xidho biicdaa'i cabdin, addoon siintiibuu ku xidhay furitaankii, wasafahu addoonkii wuu sifeeyo wuu tilmaamay zawjkii bisifati salamin, sifatu salam buu ku tilmaamay. beecu salamki sifaadkii la tilmaami jiray la sheegi jiray ayuu sheegay. fa acdadhu way siiso, addoonkiibay u keentay. laa bisifa, laakiin sifadii ma aha. addoonku waa addoonkii uu sheegay laakiin tilmaantii sifadii yaa wax ka maqan yahay. lam tadluq horta ma furmayso. aw bihaa, ama sifadii wuu leeyahay addoonkii oo sidii uu sheegtay weeyaane maciiban waayo. aw bihaa sifadii way ku sugan tahay laakiin maciiban ceeb buu leeyahay, maciiban xaali mid ceeb leh. falahu wuxuu leeyahay radduhu inuu iska celiyo ayuu leeyahay, ma rabo kan ceebta leh. wamahru mithlna wuu leeyahayo
mahar gabadho maarata iyada gabdhaha lamidka waxa lagu guuriyo taasuu qaadanaya oo fii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay qiimatu alcabdi addoonka qiimihiisii wuu leeyahay maadaama addoonkii ceeb ay ku soo baxday qiimat alcabdi wuu qaadan saliiman xaaliya addoonka mid fayow isagoo fayow ayaa qiimihiisii la siinayaa oon ceeb lahayn saliimka waxaa laga iskii oon ceeb lahayn walow qaala hadduu yidhahda cabdan addoon buu iska yidhi daluqad way furantaa bicabdin addoon bay ku furantaa mid cad iyo mid madow iyo mid xoogliyo mid aan xoogle wuxuu doonaba ha noqdo macnaha waxaa laga wadaa haddaad addoon isiiso waad furmi markaa wax sifaayo waxbana ma sheegin markaa addoon bay keenaysaa way furmaysaa laakiin ma mulkinaya mise ma mulkinayo ma mulkinayo ma yeelanayo muxuu yeelanayaa wuxuu yeelanayaa walahu wuxuuna leeyahay mahru mithlin maharka iyadoo kale lagu meheriyo leedahay sababta u yeelanaya waayana waxa weeyaan addoonku waa majhuul addoon buu iska yidhi marka wax majhuul ana ciwad ma yeesho waxaa la garanayn walidaalika xaggee loo noqonayaa shaygii fasaado mahrumadhalkiia yaa loo noqon hayaa maarata marka ciwadulbudci baan ujeeda budciga ciwadkiisa wixii budciga bedelkaa farjiga haweenka wixii bedelkaa muxuu meher baa sooma meherkiiba markaa loo noqonaya walow malaka hadduu mulkiyo oo dalqatan hal dalaaqa ugu dhiman gabadha labadii hore uu ku furayba maxaa usoo haray hal dalqada walow malaka hadduu mulkiyo dalqatan hal dalaaquu mulkiyaa dalaaq keligeeda ayuunbuu mulkiyaa faqad oo keliya faqaalad markaase waxay tidhi dalliqnii ifur oo maxaa igu furi halaatan saddex igu fur saddexdeedina maba haye meequ hayaa hal xabo bialfin welibana kun baan ku siin bay tii ila waa dalaaq oo maarata ciwad dalaaq ciwad lagu bedelanayo oo wax lagu bedelanayo ayib fadallaqa wuu furay adalqata halkii dhimanaa ayuu ku furay falahu wuxuu leeyahay alfu kun buu leeyahay waqiila qiilku wuxuu leeyahay thuluth alfi buu leeyahay in hal dalqadaa dhimaneed waqiila qiil saddexaad ba wuxuu leeyahay hala yar kala qaado in calimat ilxaala xaalka hadday ogadeedo waxeedu hal dalqada ay dhimaneyd arrintaana ay gashay fa alfun wa ilaa haddayna waxba ka ogeyna oy moodaysa saddex dalqadood inay u dhiman tahayna fa thulutkiisa halasi qowlkan uu kala farqiyey labadii qowl ma iyo isu kaa marka masaladana ma sii dhimanayado ninka hal dalqada u dhimanay dalqadii uu rabaa inuu gabadhii ka gato iyada marka waxay tiri ifur bay tiri oo waxaad igu furtaa saddex igu fur markaasuu furo hal dalqada ku furay kunkii shay uu qaadan waa laga yaaba ina isweydiiso saddex dalqadoodba ma ahayn hal bay ahayd kunkiisaa ku yeelan wuxuu ku yeelani gabadhan baynuuna inay noqoto ubay reertay baynuunatul kubra ninkan inay ka hoos baxdo ubay reertay soomaa wixii u dhimanaa ee ka hortaagnaa inay ninkan ka hoos baxdo oo suudiyo awood uu ku yeesho maaragta wixii ku reebahayay oo ka hortaagnaa inay banaankaa ka marto muxuu ahaa hal dalqada sooma ahayn hadaa halkii qaado tahay qasadkeedana wuxuu aha ninkan inay kala go-aane kunkii ha iska bixiso saas waa qowl jamhuur qiilka dambayse wuxuu le war maya war gabadhayaa la dhicine saddex dalqadood igu furbay tini maaragtay kunkana saddex dalqadood bay u bixisee dalqadii la arkana 333 baa kusoo hagaagaysee intaa aan gabadha halaga qaado inta kalena haloo dahayo saasuu qiilkan kale leh doodiisa waaya qiilka kale isagu uu yar kala qaado haloo kala qaado in ay maaragtay ogeyd xaaladu waxay tahay oo hal dalqada inay u dhimanayd matalan ay ogeyd iyo inaysan ogeyn hadday ogeyd halaga qaado kunka haddaynan ogeynna oo hal dalqada inay u dhiman tahay inay ogeyn ay moodeysay saddex in lagu qabana ila raggu meelaha isagoo mari karo intuu cadhado islaanta iska furi karaa isagoo u sheegi haddana iska soo ceshan karaa mogta dalqad baa ka maqan iyadana waxay moodeysa saddex in lagu qabo oo xataa waxaa laga yaaba lababa inay ka maqan tahay moodeysa saddexdiiba in lagu qabo usan weligeed u sheegay somada garan marka maaragtay haddaynan ogeynna gabadha waa la khalday waxaa la moodeysa in saddex lagu qabee xoolihii hala kala saddex meelood ha loo qaybiyo thuluth ha bixiso
labadii ثلثين kalena ثلثيnkii kalena ha qaadato ha loo celiyo saasuu leeyahay qowlkaa kalena oo maaragtay saasuu ku tacliilinhayaa waaya walow malaka hadduu mulkiyo dalqatan hal dalqaduu mulkiyey faqad oo keliya oo faqaala markaase waxay tiri dalliqnii furo 3 saddex igu furo ب1000 kuna qaado fadalaqa wuu furay oo dalqata halkii dalqada dhimanayd buu ku furay falahu 1000 buu leeyahay qowl jumhuur waqiila qiilka dambe oo ka hor yimidna wuxuu leeyahay ثلثه oo gabadhan saddex bay rabtay kunkana ninku wuxuu ku qaatay saddex dalqadood hala kala qaybiyay leeyihiin waqiila qiilka kale wuxuu leeyahay in calimad hadday ogeyd alxaala xaalka hadday ogeyd ayib fa 1000 ha bixiso iyada og bay ku gasheen wailaa haddaynan ogeyna fa ثلثه ثلث 1000 kunka saddex meelood meel ha bixiso walow daraba hadday dalbato dalqatan hal dalqada ay ugu furmaytiro ب1000 kuna qaado fadalaqa markaasuu furo ب100 waqaca ب100 buu ku dhaca waqiila qiilka wuxuu leeyahay ب1000 waqiila qiilka wuxuu leeyahay laa yaqac masalada waxa weyaan waxay tiri gabadhii hal dalqada ay ugu furo kunkaana qaado kolkaasuu wuxuu yihi xabal culaysku saari mahaye waan ku furay 100 dirham iska bixi waana ku furay maxaa kugu furay 100 dirham iyada maxay ogolaan in lagu furo 1,000 dirham 1,100 hadii ku baabadaan soo maa ayib 900 buu ku daayay meeqooyinkii yeelanayaa marka ma intii iyadu sheegtay buu yeelan mise intii uu ku furay la furitaan gacantiisa ku jiro yeelan mise waxbaba ma dhacahayo saddexa qowl meesha ka soo bixi karaa qowlka madhabka ee jamhuurta madhabka waxa weeyaan 100kii unbuu yeelanayaa 100kii iyuu yeelan 9kii 100 ee kale gabadha iskale qiil baa ka damida wuxuu leeyahay war waxa suusan isu khilaafin kunbay ku dhawaaqday hadalkiisa iska laqwe waxa weeyaan ha qaato kunka ayuu leeyahay kunkiisa ha qaato waayahay haya kunka inuu aqbalo uma baahnayn iyadana way u ballan qaaday ha iska qaato saasay leeyahay qolada saddexaad waxay leeyihiin iijaabkii iyo qabuulkii waa iskhilaafayoo waxbaba ma dhacahayo jawaabtii uu bixiyey iyo gabadha hadalkeedii baa isdaba maray iyadu maxay tiri meeqay ugu fur kun asagana wuxuu maxaa kugu furay 100 waa isdaba martay kolka xawa ma furra bay leeyahay wax dhacayba masha marka meelaha wadaadadu qiilka uga raadin jireen dadka isfuraa oo waxaa kale marka meeshaas laga soo qabo waxaa ma furra adii marka walow dalabad hadday dalabto dalqatan hal dalqada ب1000 hal kun ugu furbaytay hal dalqada horta fur oo kuna qaado fadalaqa markaasuu wuxuu ku furay ب100 100 wuxuu kunka iska daaya 100 iska bixi waqaca uu dhacaya dalaaq muxuu ku dhacayaa ب100 100 buu ku dhici waqiila qiilku wuxuu leeyahay ب1000 buu ku dhici waaya waqiila qiilkuna wuxuu leeyahay laa yaqac waxbaba ma dhaco walidaalika masaa-isha dalaaq markii la isahay waxaa fiican qaado in loo geeyo oo markaa qaadigu wuxuu ka gaaro oo hadduu yidhaahdo 100 way furantay 100 bixina oo maaragtay sac ku tagto haddii hore waxbaba kaama furanaya xukmu lqaadi maxaa dhihi jira xukmu lqaadi yarfacu lkhilaaf marka masaa-isha in fatwo lagu bixiy waa lagaga fiican yahay meesha qaadiga inay tagto xukun ka gaaro yaa fiican walow qaad hadday tiraa dalliqni niyaho ifur qadan beri ifuro ب1000 kun igu fur fadalaqa wuu furo qadan buu furay beridii aw qablahu qabla qad buu furay baanad horta way furantay oo bimahli mithli bay ku furantay waqiila qiilkuna wuxuu leeyahay waqiila waxaa la yidhi fii qowlin qowl dhexdu wuxuu ahaa bilmusamaa wixii ay maaragtay la magacaabay ayay maaragtay ku furmaysaa saasuu qiilka kale leeyahay qowlka kale leeyahay waaya ifuro beri ifur waxaa laygu furtaa kun igu fur waaya horta way furmi furitaan way furmi oo beri markii la gaadho hadduu furo way furmaysaa ayib hadduu uga soo hormaariyana way furmaysaa laakiin maxaa la qaada ma kunkii buu qaadanayaa mise mahlu mithli buu leeyahay maaragtay sidaa waa masalada khilaafka waa middaa dambe mahlu mithli buu leeyahay mise maaragtay wuxuu leeyahay kunkii buu leeyahay waxaa weeyaan khilaafku wuxuu ka jiro oo maaragtay dalaaq fi dhimma ma noqdo dalaaq fi dhimma maaragtay dalaaq ballanqaad maba noqdo ma kuma dhacmunta waxaan ku furi doonaa 3 sano kabacdi waan ku furi doonaa ballan nooca nig ma geli kara waa moogta
أما بريبا كفوري دونا بلن مقال طلاق سيسي بلن مقال نوعا ولذلك دوسا طلاق القرين بلن نوعاسا وحي بالفسادي أو هلاوي أو كونكي ماشي وكبحي ومحو يانا ينينكي ما المثل يانا إلا طلاق لا يكون طلاق في ذمة واحد. طيب قيل كيسوي حولاه أو قوله لمن المقت الماوي قيل مارت ضد الشافعي قول هذه اللي هذا هو إمام الشافعي مرة قيل قول مارت وحولاه وحيلا وحولاه أنت وحي لما قعدوا كي وحولاه ما مثل معها ولو قال هذا ترى طلقني إفر أو قدم بري أفر وقال المكتب وقال قال وبحال بري أفر ب1000 طلقنا بحال مركها لا يكون في ذمة لما ما قالوا بلقات ما قالوا وفطلق مركه وفري وقدم بريدي وفري قبل الغد بري وكسر بري هبينمدي وفري بعد هرتو يفرمي ما حي كفرمي ما كوكي كفر ما يسار مثل واحد يقول كوكي ما دانو هلاوي مهر مثل با مارتي لو وريجي مركا بارد وي فرنتي وحي كفرنتي بمهر المثل بكفرنتي وقيل وحالين في قول وحاكوتيري أولا شاقي ها بالمسمى كيلا مقعاوي مركا مسألة الشيخ وتلمام طريقين إني بتشيره والله ما طريقة يشران وإن قال هدو إلى هدو إن دخلت هدات قش الدار دارت هدات قش فأنت قولي هذه طارق واظفرنتها ب1000 بعد كفرنتها فقبلت ويقبل الشيء واي هبت الكونكي وانا اقبلي ودخلت وين قشي قريقين وين قشي طرقت وين فرنتاي على الصحيح السيدة السهلة محي كفرنتاي المسمى كيلا مقعاوي او كونكا وفي وجه او قول وشكرا مركع مارك فقال شيخ وقال قالوا كالعداوة يدي وفي وجه او قول مركع مارك وقول اما هو وجه لبدا متكود ترجيح بوصل بيحي واي لكن ميراها قاركود وحو كل رجحي او صواب كان مارت وسو كدغا ان وجه يحي لكن والله هيستا ما روضه كله وفي وجه وهيري لكن والله هيستا وقول بالله ماشي لو كل عداوه يدي وفي وجه واصحاب الشافعي او قول يا اسكاله قول الامام الشافعي اسكاله طيب بمهر المثل بكفر ما يسال لكن قول المذهب الصحيح هو ما حي waxay ku farmaysaa wixii la magacaabay waxaan wuxuu walahay in dakhalta وإن قال هذا هذا إن دخلتي هذا قش الدار وهي فأنت أذيك إسرائيل طالق وفرنتهاي ب1000 بعد كفرنتهاي فقبلت وين أقبل شيء كونكرت وأقربت كونكر ودخلت وين قشي الدار قريين وين قشي ودخلت قريت وفعل واحد لقلي وكان قيها عل فيه ودخلت وين قش قريه طرقت وين فرنتي على الصحيح سيد الصحراء وحي فرنتي بالمسمى كان مقعابه وكونك وفي وجه او قول وكل عداوه الشيخ زان شيخنا الشوك شكيه بمهر المثل بكفر ميساه ويصح وحاسها هي اختلاع أجنبي قل عشاني لو الروح مرت اسقبت منا وما روحني الروح كانوا نحن كسوا قري وإن كرهت زوجها ون عليه وهو كسنك اختلاعها لفظا وحكما ولوكيلها وحاولنا أن يخترع له أي لنفسه إنه خلع قرى ولأجنبي إن توكيلها بلين وكيش فبتخيل هي أيضا كانت دور يا ديران ولو اخترع أدو خلعه رجل وصرحه وعديه بوكالتها وكيل لماذا يدسوا وكيلتين كاذبا حال مثل بين شيء لم تضل قلت لما فره وأبوها هناك أجنبي بلمذيهي فيختلع بماله وكخل عن كراء فإن اخترع بمالها وصرح وعديه بوكالة أو ولاية لم تدرك إيضنا مفرنته أو باستقلال سن مدح بلان فخلع ويو بمغصوب شيء بسور دعي أيا لغو خلعي ماشي المسائش وحويان
labada isqabtay mooyaan midan ajnabiya khulac ma samayn karaa khulac ma samayn karaa oo mathalan ninkii ma ku dhigi karaa war islaantana way ku dhibtee kunkan intaad qaadato iska far kunkan dollar qaade iska far ma dhihi kara waa nin hadiska ajnabi moogta oo iska socdo war islaantana way ku dhibtay ama saaxiib hala ahaado ajnabi marka lee de wax ka furmay wuu la dhalan karaa walaalkii buu noqon karaa maaragtay adeerkii buu noqon karaa saaxiibkii buu noqon karaa ayib marka wuxuu hadduu yidhahdo war islaanta way ku dhibtay waa ko waxaana dhib iyo ceeb iyo qaylaha kugu filan kunkan qaadee iska fur saa kufur kunkan kufur ma banaanta mise ma banaan ma banaanta yasex waxaa kale inuu nin yidhaahdo war gabadhan waa dhibtay dil iyo qub iyo qac baad ku haysaa yaa kunkan qaada gabadha noo fur uu iska dhex galo maarata ma ansixi mise ma ansaxay waa ansaxaya iyada isaga kunkiisa iska qaato gabadhin ha fur ilaah hadday rabto iyadu ha tiraahdo war ninka iga furina ila balaa gacantiisa ku jiraa moogta xataa hadday leeda war ninkayga anaba dilkii iyo qaylada iyo buuqaba ku rabay ii daaya oo uu ogolaado kunkii uu qaato saa ku furo way furmaysaa soo maaragti ayib waxayna la xugun noqon hayaa sidii iyadoo khulacaa samaysay lafdamu xukman ma soo marine iyada hadday khulacaa samaysay hadduu ajnabi sameeyo isku macno bay tegi isku meel bay aadayaan isku meel unbay aadhayaan marka maaragtay zawjka xaggiisa mucaawadaha ka timid oo shawbu tacliiq ah oo mucaawado shawbu tacliiq kufr baa le mogta waxaana uu ka noqon karaa intayna maarata aqbalin xaggeeda maatan ajnabiga markaana mucaawada fiiha shawb jacaal noqon iyadu ka socdaa ajnabigiina uu ka noqon karaa ajnabigiina inshallah soo maray labada masale ajnabigiina uu ka noqon karaa xukm wa lafdan saas ku leh waliwakiiliha markii iyada mid wakiilatay marka waxay tii wakiil baad iga tahay ninkii iga khulcta oo khulc ii samee marka inuu ninkii khulc la galaa u banaan lahu macnaa lahu ay linafsi wakiil wa lahu dameerka xaggeed u celinaysaa linafsihi nafsi lwakiil oo uu yidhaahdo waxaasaan ku siine maaragtay gabadhii iska fur khulc ajnabiy waay markaa isaga u bixiyo waa u banaaya wakiilka arrinta waa u banaanta inuu isagu isku leexiyo oo khulci galo xoolihii u bixiyo waa iska banaanta waaya waxaa kaloo sheekhu inoo sheegay weli ajnabiyin tawkiiluha gabadhi oo rafaadsan baad aragtay waa u yidhahdo waxaa tiri ala lacagtan qaade adaa iga wakiile kac ninkii khulc la galo iska furo ya ninka maarata ninkii kac lacagtan qaad ko kula heshiiy kacta la gorgortanto kunkaa qaado kac ninkii iska fur oo lacagta marka yuu wakiishay ajnabigii tii hore isagaa samaynayay tanna yuu wakiilanayaa iyadii buu wakiilanaya iyadii buu lacagta qabso kac ninka iska fur si waa meelkii ku haystay oo xoolihii ku haystay waa kan adayga wakiile anigu heshiiska la gelin adigu la galo iska fur marka iyada khiyaar bay yeelanaysaa khiyaar ayay yeelanaysaa ayib waa ajnabiga iyada wakiilanaya iyada ayaa la wakiilanayaa waxa wakiilanayana waayo waa ajnabi waaya marka iyadu khiyaar bay yeelana hadday rabtana maaragtay khaalacan istiqlaalan hadday rabtana bilwakaala nin oo aan heshiino oo intaa qaado ifur bay toos u dhihi kartaa ama waxay dhihi kartaa anoo hebel wakiilka ah oo lacagta wadoo raba inaan ku siiyo hebel aan wakiil ka ahay heshiis ila galo lacag intaa qaata ifur labadaba khiyaarka iyada midka ay samaynayso takhayarkeeda waa saas inay iyadu toos heshiiska ula gasho itlaa lacagta hebelkiiba aysan sheegin itla lacagtan qaado ifur iyo inay tiraada anoo hebel wakiilka oo lacagtana qaado anigana ifur hebel baa waxaan bixiyo wakiilka ah iyada labadaba khiyaar midkay rabta way samayn kartaa waaya waxaad u imaata marka nin baa khulco galay wuxuuna caddeeyey nin wuxuu ku yihi xoolahan maaragtay xoolahan ku siine anigana heblaan wakiil ka ahay xoolahan xaggeen ka keenay heblaan wakiil ka ahay kun baana ku hayaa ee gabadhii fur been buuna sheegaya waa kaadib wax runa ma sheegaa sidii buu gabadhii ku furay kii kalena run buu mooday ma furmaysaa mise ma furmayso ilaa been baa meesha marka oo wax la isku soo xirxidheen
marka maxayna u furmaynin waxayna u furmayn horta isagu waa beenaale oo maarta lacag uguma yeelanayo gabadhiina ma soo wakiilaninoo ma ayna soo dirsanin anaa bixinna muusa lahaa heblo wakiilkaaga xoolaheeda kaaga keeni buu leeyahay waxbuu isku qalnahaya walidaalika khuluciisa kaama soconhaya gabadhuna ma furmayso aabahe ajnabi oo kale waa waxaa odayaasha intay iska tagaan indhahaan oyaa meherka kuma haysana gabadha iska fur waxa meherkeeda anaa kaa cafiyo waxba kama jiro waxa hadduusan maaragtay isagu wakiil aan ahayn oo gabadho ayna soo dirsa hadday soo dirsato ay tiraahdo ninkaa iga fur oo meherkaygiina maarata ha igu furo dalqali maxaa iga soo gadaysaa meherkii aan ku lahaa aan isdhaafsano saas kusoo shaqeen haa laakiin inuu intu iska soo istaago u yidhaha waranaa dhalay waxna laguma haysto iska fur middaa ma socon ma soconayso ma socon horta taa ajnabigu kala mid yahay ajnabi xooggiisa wad soo martay oo marka waxaa weeyaan khulca ajnabiy weeyaan oo isagu baa lagu yeelaa isagu baa la bixi hadduu maarata isagoo faraha la galo hadduu yidhaahdo xoolaheeda yani intaa kaa siina fur xoolaheedan intaa kaa siina fur ama meherkeedii qaadoo fur hadduu sidaa yidhaahdo oo uu leeyahay anaa wakiilka ama anaa weligeedii oo dhalay anaa dhalayba ama anaa wakiilka uu leeyahay waxba ma furmayso sababto mabayna soo dirsan mugti sida ajnabiga oo kale weeyaan hadduu wakiilka yahaa saxba biistiqlaalba isagaaba tii hore mithaalki hore sheegayo kale tag toos ugu sii cale ninkii uu arkay gabadhiisi inay isku xun yihiin oo ninkii uu yeelo wuxuu adeer wax aan kaa rabna ma jireen gabadha meherkeediina maaragtay adiga qaado iyadana dalqadaheeda sii waa biistiqlaal ma xoolaheeduba soo qaada rabaa inuu kaga furaba waayo oo bakooradiisu iska wata waa duqaas xoogayaba gabadhii ma socon arrinta mase ma soconayso maya fa khulcun bimaqsuubin xoolahada soo dhacay khulc ma gelayaan mise ma gelayaan ma gelayaan dalaaqa rajci uu noqonaya markaa khulc bimaqsuub buu noqon hayaa saas ku leedahay wayasixu waxaa asaxahaya ikhtilaacu ajnabiyin ajnabi khuluc samayntii wain karihatu haba nacdo khulca azawjatu zawjadu raali bayayna ka ahaanine wahuwa isaguna ajnabiga wuxuu lamid noqonaya kakhtilaaciha khulca ajnabiga wuxuu lamid yahay kakhtilaaciha khulcashadeedii oo kale lafdan wa xukman xagga oraahda iyo hadalka iyo xagga xukunkaba waaya waliwakiiliha wakiilkeedina waxaa u banaan iyadoo ay wakiilatay an yakhtalica inuu soo khulcado lahu linafsihi uu khulcu soo galo balanta isagu soo qaato waayahay weli ajnabiyin ajnabi waxaa u banaan tawkiiluhaa gabadhi inuu wakiisho oo yidhaha kacdayga wakiile waana iyada ninkeedii qabay yuu u dirayaa waayo lacagta qaada ninka iskaga soo fur fatatakhayaru markaa khiyaar ba yeelan hiya iyadu inay iyadu istiqlaalan ay khulcato iyo inay wakaalo ahaan ku khulcato labadaba waa u banaanta khiyaar ba yeelanaysaa ee walow ikhtalaca hadduu khulc dalbado codsado rajulu nin oo wasaraxa oo caddeeyo biwakaalatihaa iyada wakaaladeeda inuu caddeeyo yidhaha wakiil baan ka ahay kaadiban isagoo waxaa mid been sheegaya lam tadluq gabadha lam tudallaq dheh gabadha lama furayo wa abuuhaana ka ajnabiyun aabaheedan sida ajnabi oo kale weeye fayakhtalicu wuu khulcadaa bimaalihi xoolihiisa wuu ku khulcan karaa khulcu ajnabi waa inagii soo mari jiray fain ikhtalaca hadduu ku khulcado bimaaliha xoolaheedi wakiilnimada wakaalana uusan haysanin oo wasaraxa waxaan jeeda oo wasaraxa oo caddeeye biwakaalatin buu caddeeyey aw wilaayatin buu caddeeyey lam tadluq ma furmayso waa hadduu been sheegayo waa hadduusan been sheegaynin oo haday sax tahay iyada haa waa sidii kii beenta ahaa waay marka ulile lam tadluq hadday laakiin uu run ku sheegayo wakaalada waxaa weya iyada maarata way furmaysaa waayahay aw biistiqlaalin ba odayga isaga hawsha gacanta iskaga qabsaday oo gabadhiisi waxaa u weyday anaa dhale maxaa wax ka weydiin buu la taagan yahay fa khulcun khulc wey bimaqsuubin shay la soo dhacay lagu khulcado way kaasina ma dhacahay fasl cuquudda culimadu wax badan markay inoo soo sheegaan axkaamtiisa waxay ku gebagabeeyaan haddii khilaaf yimaado labada ruuxii caqdiga iyo heshiisku ka dhexey hadday iskhilaafaan see loo kala bixin waa si loo kala bixin amr idacad hadday sheegatay gabadhii khulcan bay sheegatay dalqadahayga waan kaa gatay bay tihi oo fa ankara isna waa diiday waxba kama jiro uu yihi waxaad sheegaysa wax gabadhiga ka jira mala
صدق بيمينه دارتي سالو الرمين حال قاعدة وحيه الأصل بقاء ما كان على ما كان مركا أصل النكاح بقاء هو ويقولون ماشي ميالو أدي مخراتي كانتو لبنين كانتو مويه لبنان كينيا حتى إسلام قررك يقولي تشوفني سؤالنا ما أعرف إسقطوا عنه هذا يتلاها واحد مقاطعين هيسن إسنو ديو سووا ملنا دارو كاس كنا واسدي وطلقات إسقوا قصدوا وارد فرتيه كم فرنا كله وإدعى هذا شيء دخول عن باي شيء فأنكر وذكر صدق بيمينه والله رمين سأل الله رمين هذا مخرات وذني لبننا وقال هذول طلبت كوان كفر بكذا ساسا كم كفر مثلا فقالوا مركز وحياتي مجانا بلاش بعد كفرت وأوضاع كلامك مركز بريء شرني وان كفرهم هذا كفرت كم كفر يكون كيسي أيضا محل هذا إمام فرد بلاش بعد كفرت حبايب ماذا معه وحشرت المتشري فقالوا حياتي مجانا بلاش بعد كفرتين بعد هرت فرتاك وسلوا قلي موته فرتاكي اسلوا قلي وقلوا وان كفرهم كم كفر أيضا محل هذا هاوان فرتاك بلاش بعد كفرتين حبايب ماذا الربيب هرت فرتاك واحد وقضى حول ماشي مترا أو ولا كلا قاضني ولا عوض ماشي ما يعني هدوس المخراتي عادين كيري وإن اختلف هذا يسكو خلافان في جنس عوضه خلع جنس عوض كيسي جنس كيسي يسكو خلافان والعق يواجيل يوالو يواري يوجاري يقول ما يسكو هو جنسه أو ما سقدره ما يسكو هيسايو وبقول كل ولا عكية يوكل دولار أما حتى ولا بقول $1 أو $2 قل كيف على السكوها وين عواي ولا بينة عدينا لماهي تحالفا وإسلا الله بدارنا يا ووجه مركب محا واجبية ما هو مثل بواجبي مثلا أنت بحاول حسكو خلافسين وحي وجرا خلع وجرا لكن وحسكوها يا جنسي سمحوها مكيل بوها بسم الله وها وحسكو كمان كرمك تقيرنا هو جنسي لوضنا هو جنسي ما هي جنسي والإسلام قليهين والعقبها لكن ما يسكوها ما بقولكم بيه سلام بقولكم لكن تاس يسكوها وقدرك طيب مخراتو عدينا ماشي ميالو ويسكت بدارن انصبر المثال مرة هدي اسكت بدارتين عقد يسكو فسخ ماشي وكبه لو بدار شغال بحي وين يسوي له مثلا هدي جنسي هي وسيو قيل له يضنا يلو له والله إنه صلى الله عليه والله إنه ها قيلها مثلا والله إنه قيلها والله إنه صلى الله وإنه لا بشر بارتا أيامنا وين تراها كذا بارتا تراها والله إنه سمارت قيلها هذا والله إنه لقها أو سنقيلها إنه كل عارف أيامنا مثلا هذا تستمر مرة وين كذا بارتا ونارتي عكس أيضا إلا إماتها تعال فاهم مرة دارتا markay imaato wixii waa laga baxay xagee loo noqon waxa loo noqon maalmada waxa loogu noqonayo budciga haweenka ama farjiga haweenka maxaa ninka ku xalaalaysta meel soma meelkii uu maalmada kala noqonaya وإن اختلف هذا اسمه خلافان في جنس عوضه عوض الخلع عوض جنس يسكو قبتين أو قدر العوض ما عرف عوض الخلع يسكو قبتين انتو لاك ولا بينتها تحالفا وإلا بدارتان وإسكت بدارن ووجب مهر المثل بان واجبين ولو خارع هدوه خلعضو ب1000 كنبو خلعضي والنوايا وين النيوذين النوع بين النيوذين لزمة وقيل كحولي مهر المثل بواجبي ولو قال هدونا أردنا وحانو شهد دنانيرا وفقال المركزية وحيث البلد راهما أو فلوس مالو شهد تحالفا وإسكت بدارن على الأول قولك هراء ويسكت ودارن ووجب مهر المثل ووجب حواجب يوم مهر المثل وواجب بلا تحالف الآن على الثاني قولك هذا ماشي وحويان كوكي والإسلام قليه مرقا كم ما كوكو فريبور لبضوضنا النوع أي سلوكيهم بنيسينيهين كن دينار يكون درهم ميدو النقضوة كاسها لازمين كن شلن كن $1 ميدو النقضوة كيف لازم قيل ما كنت بيننا وحولي مدام أو حبلا عديننا واحد قلبك ونوها هيو قلبك وحولي واحد منويق أو حلميديا ما شيء منويق مقام الملفوظ وحلوها الله وكلو تاغين موقتها طيب
قيل كسبه في الورمايا ما دام وحبل عدين وواحد يقول له وقيل السنشيرين معروف البشر هذا التصمير والفساد ما هذا التصمير فدين وحالون نقول هيا ويحكي على بدل كيس حالون نقول هيا سأسكر فلان مرجع مسألة كرهته مرجع شاب مرجع لبضع قول بوشي ومسألة كدري مسألة لبضع قول سيد الله كره حكومنا وكوك على الشيء وكوك على الشيء مرجع وحكوا لي هدول أنكي كونكي ولو خارع ب1000 أنا كونك وحنولتش كون دينار والعدد ذهب markaasay soo boodo waxay tiri kunka aniga waxaan ula jeedo niyadaydu ahayd daraahima lacagta fidada way ka raqaysan tahay ma aha diinaar iyo dahab toona anigaba niyeysnayna waxaan niyeysnaa fulus filsiga waa lacagta haddaan haysana iska shimada biraha macnaha lahayn aflasa fulaan marka la leeyahay waa nin caydhoobay waa ilaa wax hadda warqadahan haysano kolkii dahab iyo fida loo sameeyo loo fiiriyo muxuu iska noqonayaa nooc caynimo waxba la-aan ah marka inkastoo hadda adduunka iyaduba ay qabsatay marka waxay tii diinaar ma ahayn dirhamna ma ahayn ee muxuu ahaa fuluus bu ah fuluustana markaan soo marino shaaficiyadu zaka waajib kuma ribana maba gasho waaya maxaa xala marka taxaalafa waa iska daba dhaaranaya labadii ruux ayib qowlka hore waa qowlkee ya qowlka hore wuxuu yahay lazima soo ma ahayn walow khaaraca ب1000 wanawaya nawcan qowlka hore muxuu ahaa lazima almanwiy waay wixii la niyooday yaa laazimay walidaalika iska daba dhaaran oo ninku wuxuu ku dhaaranayaa wallahi inayna maaragtay diinaar ahayn wallahi inaysan fals iyo dirham toon ahayn saas ku dhaaran iyadana tii kale cagsigeeda ku dhaaranaysa waa qowlka hore lazimada qowlka labaad ووجب مهر المثل ما واجب قول كلام المحول وقيل مهر المثل سماهين أسأل مهر المثل كيف يسكوا واجب وعند أنا ماشي ما بتعرف إلا أسأل مركب هذا الشيء أيها فساد مبتة مركز التواصل هو على قول كلام مهر المثل هو على ولا نقدر هو مهر قول كلام ولو خلع هدو خلع ب1000 بوكو خلع ولا ويا وحين النيوذين نوعا بين النيوذين لازم النوع لازم وقيل قيل مهر مثل بواجبي ولو قال هدو لا أردنا وحنقول شيء وحي قلبي أن كل شيء كوهستي وحنقول شيء دنانيرة وحين وحوها قلبي إنه وشر دنانير بعد ذهبك فقال مركز وحيتي بل دراهم بأهين يذينه أما وحيتي بل فلوس بأهين صعب تحالفا واسكت ودارا على الأول قول كهروي لازمة واسكت ودارا قول كلامات ووجب وحواجب مهر مثل ما واجب بلا تحالف النار العام على الثاني قول كلامات سكاس لازمة كتاب الطلاق الطلاق لقاها وحال هذا حل القيد ما في حلق الله فروح وما في طاقة مثلا وحال ناقة طالق هل فرن نيف جيرو فرن أي مرسل ما دبر أنا ما نسيت سنة وكاوسكي سيدي سنته مركب وناقة طارق امرأة طارق مركب له وحل وكحلا أو نكي وحلا قبل مرة معناه حاجة شرعي وحويان اسم الحل قيد النكاح تعريف كل دوم اسم ما نوسعتها علماء الشراح ما حلو كعبرة لكن هذا واحد ما قعدوا هاي حرق النكاح إلى مقتهي ميقا سؤال حتى واحد لها ميقا حرق باب ماركت ميقا حرق آيات ماركت سؤال ماركت أما ميقا حرق باب كنت كذا ماركت مركا أما حرق باب يقول حلان إيو حرق ممكن وين عن سؤال ممكن وحرق وقول حلان لما تشيره مركا مثلا ماركت هو مسكا ماركت كلمة محالي كناية هان أو ماركت ماشي استعارة مشان استعارة هان لو عاري سنة ماشي حرق ماشي اللي جينية سيدي لو يروح واحد كوعنا لغنى مركا حرق كلا فوركيس هذه لا كلا فرو وحرق النكاح لا كلا فرو تحلونا بلا يا طلاق وحلو كلا فرو طلاق خلع بس عمر توسع عوض ما لو كلا تجاهل كنا بدون عوض ونقول كلا عوض ونسوق ونقول كلا وبناء حق الشرع والقرآن كان يقص على الطلاق مرتان آيات كلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء أيضا قص على كلا الدول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن القرآن كما كلا الدول وقص على فرتان صحيحين وحقوق البخاري ومسلم
inuu nabigu alayhi salaatu wasalaam haweenka ama islaamta waxaa laga abuuray feer qalloocda soo ma feer qalloocda laga abuuray nabigu alayhi salaatu wasalaam marka adiga xadiidkan waxaa uga jeeda waxaa weya ninkii damca inuu toosiyo wuu jebiyaa jebinteedu marka muxuu aha kasruhaa dalabaha marka furitaan sharciga waa kamid nabi maxamed baa wax furay calayhi salaatu wasalaam xabsuu furay oo riya lagu tusoo la yidhi waa maaragtay waa xaaskaaga ahlu jannada inaha sawaama qawaama lamaba heli kara mogtay islaan sawaama qawaama ah oo wax aada u weyn oo gabadh soom badan oo salaatuleyl badan waa xaaskaaga jannade soo celi baa la weyy nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii kale tiri acuudu billahi ninka waa kii furay nabiga calayhi salaatu wasalaam laqad cudti bicadiim maarata bicadiimin ilxaqi biahlik marka waxa weeyaan maarata adi dalaaqa waa shay sharciya waa shay maaragtay maslaxa marmarka qaarkood culimada qaarkood waxay mariyaan axkaamtii shanta ahayd maaragtay yubaaxu lilxaaja wayukrahu bicadamiha matala kutubta yarka kale way cabiraan hadda kitaabkeena saa uma qorin mar buu maaragtay mubaax yahay mar buu karaahiye yahay mar buu waajibaa yajib lililah baabililah waa gaari doonaa mar buu xaaraan yahay markuu lilbidca yahay bidca oo gabadha caado qabto ama saddex iyo waxa uu ku dhawaaqayo markaa muxuu noqon hayaa xaaraan buu noqon hayaa mar buu mustaxab yahay oo lidarar ila darar yuzaal waay mogta labada ruux markay isku rafaadaan in la kala furo markaa muxuu noqon hayaa mustaxab ayuu noqon hayaa marka axkaamtii shan tahayd way mariyaan culimadu oo maarata waa lasoo mariyaa xugun ahaan way iska fiican tahay adduunka waad arkay maanta dalaaqla iska batay dhalinyarada dadkeeni horwadiya dhaameyna dhalinyarada aada u dalaaqooda u badan yahay oo maarata ama casriga maanta la joogo marka way fiicnaan lahayd asbaabu dalaaq bal in la baaro asbaabtaas maarata waa kala dhaqaaqaya ya bbc furitaanka ku bataan sooma hawaka ama furitaanka aada buu badan yahay aada buu badan weli magaalada gaarso kale aada buu ugu badataa mararka qaarkood maxaa lay xataa mararka qaarkood waxaa la keenaa laba qaadi sababto buuqaa badan reeraha haysta oo magaalada in laba qaadi laba xafiis loo kala yeelo iyay noqotaa marka waana waxaa laga yaabaa meelaha ugu roon inaan nahay haddana sidaa ay tahay oo meelaha inaga daran ay sii jiraan ya nolosha ma aha nolosha weligeed iska soo adkeeda ruuxna way ku adkeed ruuxna u qaboweyda haween dhaqan xumo kale iska soo korodhay asbaabta awood way dacweyneysa ay sii ordayso waay marka asbaab fara badan baa dhici karta laakin an waxaa isleeyahay asbaabta ugu muhiimsan jahliga waa maarata labada ruux islaamnimadii iyo xuquuqdii dadkan isku lahaayeen o dhan wixii jahli baa nagaga sugaya marka way fiicnaan lahayd magaalada in laga furo maraakiis lagu tababaro dhalinyaradu intayna guursanin sida maraakiista taxfiidka u samayseen maraakiis lagu tababaro oo xuquuqda lagu baro 7 beri iyo kada shahaado la siiyo adduunka meelaha dawladaha qaarkood way kasoo dhacday oo dawlooyin loo qabto nin kastoo guursanaya meesha soo mara shahaado la ego si gabadhii lagu guuriyo way iska fiicnaan lahayd waay marka waxyaala badan baa jira midda kale dhalinyarada maanta odayaasha way ka duwan yihiin wax badan saan is leeyahay waxaa ugu wacaan gabadhiiba hadee maarata iska garab ordahayaan ma jika ma guriba ma ilma wuxuu yar kala baran yaha fiican moogtahay kolka xabadda canjarada in la isku dilo soo khatar maaha haddii la wada dubo ama kaala soo duba lagu yahay hadaba geligaagiiba waa arrin khatarteeda leh marka garab orodka faraha badan oo jikadiiba lala qabsaday gabdhaha lafteeda qaylo badan bay haddii kaa wada berri maxaad u maran marka ya marka in wax kala maran yahay sida odayaasheena hore waxba u kala baxsanaa haweenka iyo ragga waxba u kala baxsanaa ninba meel buu lahaa marka la iskuma khaldami jirin waay marka ad waxyaala badan baa jira lakin hadda waqti uma hayna in la baaray u baahan tahay yushtaradu waxaa la shardiyaa dalaaqa marka wuxuu leeyahay shuruudna wuu leeyahay alfaadna wuu leeyahay alfaadiisu sariix weelaa kinaayana weelaada yushtaradu waxaa la shardiyaa linufuudihi inuu fulo oo u baxo atakliif inuu ruuxa maaragtay dalaaqa sameynaya uu mukalaf yahay haween horta ma sameeyaan gaalooyinka hadda yurub iyo maraykan laleeyahay naagtu hadday kaala horeysa waad furmaysaa sharcadeena ma ogola rag unbaa wax fura ragga wax furayana maxaa la rabaa
inuu mukallaf yahay. Mukallaf markaa waxaa waa ruux qaangaaro caqli leh. meesha waxaa baxaya ilmihii yaraa furitaankiisu ma dhacayo, kii waa hadduu caawiyo beri iyo maanta iyo saacadooda waxba furay ku hayana isagana waxba kama furmahayo kii waala ila sakraana mooye kii isagu maaragtay sarqaanka ah oo khamra ka soo dhargay ama qaad iyo wax ka soo dhargay hadduu yidhaahdo waan furmay ka furmaysaa. sakraanka laba loo kala qaadi oo daawo maalan uu isdaaweynayay buu cabo ruuxii uu doorsoomay oo iska hadlaya isma oga daawada ka tambadisay wixii isku daaweynayay kaa waxba kama furmahayo la shay mubaax ayuu isticmaaleen. kan isticmaalay shayga muxaramka sida khamradii iyo xashiishkii iyo qaadkii iyo hadduu naagtiisii furo oo dhawaan ilaa waxaa ma ogeyn ma laga yeelayaa. madhabka shaaficiyada lagama yeelayo, madhab qol jumhuur culimada moodaa culimada laakiin qaar baa leh warinka waa sidii nin waalane asagaaba dhib haystaa oo maaragtay waa la ciqaabi oo la garaacay bal naagtiina yaa loogu daray. qolooyin baa saa ku doodahaya oo laba dhib yaa ninka ku wada dhicin. wayaqacu dhacahayaa oo bisariixihi dalaaqa sariixiisa kiisa cad bilaa niya oo inaga nidhi dalaaqu maaragtay siiquu leeyahay. siiqooyinkiisa maxay u qaybsamayaan? horta arkaan buu leeyahay oo arkaantii maalan waa in meeshii zawj joogo oo wax furay uu zawj yahay. maaragtay waa in qasad uu jiraa alqasdu way ku daran shuruuda. waa in siiqa la helaa. siiqadi waa taada marka zawjkood ka soo baxda waa mukallaf, siiqadiina waa ta. waxaa kaloo meesha ku jira maxal waa islaanta la furahayo maxal maalan maaragtay uu ku dhacahayo ninkaa maarata furitaankaas uu ku dhacayana waa in la helaa oo maaragtay naag ajnabi iskama furi karti moogtahay markaa wax furayso meel maxal oo munaasib u ah waa in la helaa. marka hadda tan siiqada inoo bilaabo siiqada waxay u qaybsantaa sariix iyo kinaaya u qaybsantaa. sariixu waa wax cad hadal cadal meel kale loo leexin karin. kinaayaduna waa hadal yar maldahan ama sarbee wax tiradaa la yar maldahayo sidana waa suuragal sidana suuragal bay ka tahay kaa kinaaya kaa niyi u baahaya. wayaqacu uu dhacahaya dalaaqii oo bisariixihi sariixi dalaaq buu ku dhacaa bilaa niyati niya la-aan oo bikinaayatin uu ku dhacaa oo biniyatin buu ku dhacaa. kacidiin aadan gurigiin aad haddaad tiraahdo maa lagu weydiin hebel ma furitaan baad ula jeeday mise mar furitaan bay noqotaa. nabi maxamed alayh salatu wasalaam gabadhii uu furay wakii ku yihi ilxaqii biahli furitaan bay ahayd. marna waxa weeyaan tii Kacab ibn Maalik oo kale oo iyo raggii la ciqaabay saddexdaa waa ku yidhi ka ahreeniini aada taada furitaan ma ahayn maxay ahayd maarka iska caadi leh. marka kinaayada miyay u baahan tahay waa in la kala cadeeyaa. fasariixuhu marka sariixu talaaq waxa weeyaan adalaaq kelimatu adalaaq wakada alfiraaq iyo wasiraax cala almashhuuri. adalaaq iyada maarata waa khilaaf la-aan. kelimatu dalaaq iyo waxay ka farcamay waa laynoo sheegi doonaa mastarkeeda mooyn inta kale iyagana ijmaac culamaa caleyh waa dalaaq waa sariix buu noqon وعليه نيران بس كان عايز ثلاث جدهن جد وهزلهن محاه جد وطلاق سكنه. طيب وكذا الفراق والصراح والوضع على المشهور بمارت السريح كويهين قول بالك قصه الشذر السريح معها. لكن لما ضل القرآن قصه عراري ومارت طلاق الطلاق مرتين كان تسريحا او تسريح باحسان بالغ فراقا ففارق مارت فارقوهن بمعروف سمين يدين. marka labada saddexda uu ku soo aroorayo saddexda madhabka waxa weeyaan qowlka madhabka inay yihiin sariix yihiin. waayahay mithaalkii sheekhu ku keenay waa iska mithaal waxa kale ka dalaqtuki hadduu ninku ku yidhaha naagtiisa waayahay waa sariix wa anti taaliq hadduu yidhaahdana waa sariix wa mudallaqatun anti taaliq waa ism faacil taaliqatun la dhihi maayo ta la gelinayo waa sifaadka haweenka goonida ku ahoo ta kaagama baahna. wa anti taaliqun waad furan tahay ومطلقة ومثل فري ويا طالق انت وكفر ميسا وهي مطلقة واسم مفعول. لكن هدول مطلقة واسم فاعل كان يقول لا انت هصدر وحال مفر ميسا مطلقة ايضا وحفر يسا مبدي ايضا رحمه فرطا. لا انت طلاق مصدر هدو استعمال مصدر كثير اعيانتي انت مضر لما استعمالين هدو مارك تيقول هذا انت طالق ومصدر كان انت طلاق ولا هذا انت قبل طلاق بابتها هذا طلاق صريح معها صريح ما وكنار. والطلاق في الأصح أنت الطلاق والقلب قريب تعريفي في الأصح لبضع صريح معها لبضع ومصدرك ومرة قال لك قليل مرة أيضا نكرا على شيء مرة وكناية والويدين مرة أنت الطلاق الله محل وجهك أما أنت طلاق الله محل وجهك والويدين
maxaa labadooda waa laba lafdi oo masdar ah. وترجمة الطلاق ولا ترجمة بالعجمية عجمي لو ترجمان أو فسرنا الصريح على المذهب كسوية هاي مركا الطلاق فريتان صوما هذول نجيس أفصالك وهذا ويا ناقت وان فري مصريح بس وكناية والصريح مركا الترجمة دي وأطلقتك وأنت مطلقة كناية إلى الله أطلقتك وأنت أطلاق معنا واحد سيدة ممتاز أما مطلق هو واحد قيلان اللي سكسي ده الطلاق معه مطلق طالق معه والله الشيء معولي أطلقتك وكسيدة وأنت مطلقة وأنت مطلقة هشيم وأنت مطلقة مثل سيدة يباتها مطلق اليدين وكذا وحساس كلام مركا ما حد كوا ضوين له كناية وكواسي كناية هو وكلمة هذا وجه ده ما هذا وجه ده ساسا صريح معها ولو اشتهر هذو شروبه لفظ الطلاق لفظ الطلاق لفظ يسيب الشهرة نقضي لو ذكرنا يكل حرام ها أساسا في عمامه أنا هو ويقال لي ولو اشتهر هذو شروبه لفظ بشروبي أو ضبرتي لفظ محل لو يقعنا للطلاق فرتان بلو يقعنا كالحلال 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 محمد القرآن ترى كالحلال بذي برسوله كالحلال لفظ كالحلال وكلا أو حلال الله إله حلاشيس علي حرام لبض ويتعالى وحويان الحلال علي حرام أما وحويلي حلال الله علي حرام لبض ما أعرف ما ناس وتعالى مركا magaaladeenna la kala ka soo qaad yaa dadku waxay u barteen xalaalullaahi calay ama mujtamacna Soomaalida ku dhex nool yaa waxay u yaqaan xalaalullaahi ninka haduu yiraahdo wixii xalaashi ilaahay xaraam bay iga tahay haday u yaqaanaan furitaan lafdiga sariix ma noqon mise ma noqonayo uu noqon buu leeyahay laakiin imaam Nawawi ka daba tagi doona yaa ka daba tagi doona rajixi doona ولو اشتهر هذو شروب لفظ بشروب للطلاق فورتان كيف شروب كالحلال حلاش علي دشينا حرام أو حلال الله إلهي حلاشيس علي حرام ويفسريح وفي الأصح قلت إمام النووي يقول على الصح وحويا أنه يسوي كناية والله أعلم مع الصريح وهو إله القرآن كيسا والسنة النبي قصة على أما ألسنة المالك تذكر علماء يديتي يصحابي عرب قولي لقوب برتين أما واحد إذا إسكسها ما يستاهل شرع ما نقول بس ما نقول هاي مع القرآن السنة والكتاب وكنايته طلاق كنايتي سوى حويان أنت كأنت أذيك قبليها وحمارتي خلية بعتها مت خالية كمرا نلعان لأن نلعان بعتها بكل مثلا محالك محاد كواضع وحي خالية كتها واضح نلعان مهريبا معناها مارتي ندول على نلعان بعتها نلعان هذا إنه يسوي سكولا وارجع يا إنه كمله من كلام يدور عليك هاينا والصورة قال ممتع وكناية وين سيلوي وهي برية هو استعمال أنت برية معناه عصمة زوج إلى مارتي قبيتان كله قبيل بركته والصورة قال ما هي الدم حمام بركته واسك الصورة قال يلا برية بطة تقول أنت بطة أبغى أنت هاي وقلتان قالوا نقول كرا نكاحي حيلك نكاحي نقدر حيوا كرا بعد ما هشيسكي يا صاحبي نودي نقدر حي وحمو نقول كرا طلاق ما عدا بطة قلتان وأنت بطلة باستعمالي معناه ومن متروكة من اللي قلت متروكة النكاح من اللي قلت بعد هاي ولذلك وتبتل القرآن محمد صار وتبتل إليه تبتيل النبي الوكيل هبي التبتل عن النكاح مركا بطلة نكاح وكيل أنت على أساس الكراء ما حد ولا شيء دوائر ولا عدايو بطلة وبيتان كاس نكاح لقى جو وباين باتهل قبل باين باين وعارف هذا كلام ما سؤالي قبل أنت فصل كذا من النقل باين معنا من اللي قد تجي ولا قد فوق هذه فوق عشان اسمك مفروتان با ما وحكرا الله أعلم اعتديوا عدة ترسم كعدة ترسم والعدة ترسم هذا كودي عدة قلبه مركب
ama istabra'i raximak wax lamida marka ictadi ama istabra'i raximak raximkaaga hubso inuu ilmo ku jiriyo in kale alfaadaan maaragtay waxay u baahan yihiin iyadana niye u baahan yihiin niye ay u baahan yihiin maxaa tirsiga muxuu ka wadaa ma nin hore furayba ma isaga ma wax dib ka imaan doonaa ma wax istibraa saas oo kale muxuu uga jeedaa waaya ilxaqi biahlik ka reerkiina aad cid ilxaqi biahlik reerkiina aad haleel hadduu yidhaahdo muxuu uga jeedaa xabluki xaligaagu calaa qaaribika adiga ayuu maaragtay tunka kuu saaran yahay qoorta kuu saaran yahay maarata muxuu uga jeedaa macnaa xabluka calaa qaaribika macnaa waxaweyaan xabluhu calaa qaaribi marka la leeyahay waa wax la sii daayo ratiga marka hogaanka ama dabarka inti wax laga fura neefka geela qoorta loogu duubo loo saarma si u daaqo oo marka wixii laga furo ayaa leeyahay xabluhu calaa qaarib matala marka xabluka calaa qaaribik maarata xaligaagii baa qoorta iyo tunka kuu saara waxaas waayahay laa andahu may uma abayeelayo anigu waxdana kamanihi hadduu yidhaahdo oo maaragtay sarbaki adiga dantaadii xali wax danoo kaale afsoomaali waxaa isku noqon intaa shanigaaga arrintaada wax aan kale dan mabto la wax danoo kaale afsoomaali iska dhahdaa maogtaa aada loo dhaha na danna kaamanihi maarata marka burmaanka wax danoo kaale ma jeedo marka hadduu sidaa yidhaahdo ma furitaanku ula jeedaa mise ulama jeedo isagaa la weydiina waayahay uczubii kac maarata doob noqo buyi doobe waayahay maarata doobe doodgana cadbiga waa ruuxa nin maarata naagti iyo ninka aan lahayn xaaska lahayn yaa cadib leha soo maa waayahay uqurbii maarata gariibo noqo maarata iga fogow baa iyadana laga wadaa intaba waa un iga fogo labada uczubii uqribii waa un fogaansho iyo macnuhu noqonaya ama cayn iyo maaragtay qoyn wax la akrisana daciini idaabur gabadha iga tag wadicni isagooti aan isisagootin aan kala dhaqaajin wanaxwaha iyo wixii intaa lamida muxuu noqonayaa kinaayo noqonaya walictaaqu xorayntiina kinaayatu waan ku xoreeyey buu ku yiri ninbaa naagtiis wuxuu ku yiri waan ku xoreeyey ma sariix baa mise waa kinaayo waa kinaayo weeye waa kinaayatu dalaaqi bay noqonaysaa waa cagsuguna sidoo kale ninbaa addoonkiisi wuxuu ku yidhi waayahay ama gabadhi addoon tahay waaya maarata anta daaliq buu ku yidhi addoonkiisi matalan anta niyahu addoonkiiba ku wada mogta daaliq buu yihi marka daaliqaasi waa kinaayatu cidqin weeyaan maxaad ola jeeda baa la leeyahay hadduu yidhahdo xoreyn baan ola jeeda xoreynaya cagsi saas ka wada waayahay walaysa dalaaqu ma aha kinaayatan kinaayo uma aho kinaayata dhihaarin ma aha kinaayata dhihaar ma aha inuu yidhaahdo mathalan waan furay intuu yidhaahdo haddana u yidhahdo dhihaar baan ula jeeday ma laga yeeli maya ila dhihaarku waxba ma furmaysee kafaaro baa qalanaysa mogti waan furay buu laleeyahay maxaana ula jeeday dhihaar oo sida hooyada kale iga tahay baan uga jeeday lagama yeelayo waa cagsigu sidoo kale inuu yidhaahdo maaragtay anti calay kadaa maaragtay waad iga tahay anti calay oo kale u yidhaahdo oo yidhaahdo furitaan baan ula jeeday iyadana maya waxba ma noqonayso taas walow qaala hadduu yidhahdo anti adiga calaya dusheeda xaraamun baad iga tahay aw amase xaramtuki waan iska kaa xarimay tanaa soomaalida ka badan naa xaaraan baad iga tahay maarta kuma soo dhawaanayso aad ba ugu badanta iyo dankaa malihi waxyaalihi soo maray wax badan way ku hadlaan waaya xaraamun baad iga tahay aw xaramtuki wanawa dalaaqana uu ula jeedo ow dhihaaran xasara wuxuu ula jeeday waa dhici hadduu dalaaq ula jeedo muxuu noqonayaa dalaaq hadduu dhihaar ula jeedana muxuu noqonayaa dhihaar xasara aw amase nawaahumaa labadooda uu ula jeeday takhayara adaa dhala mid dooro ama dalaaq dooro iska furitaan ka dhig ama dhihaar dooro oo kafaara iska bixi wahabata makhtaara wuxuu doortay baana sugnaan wahabata waxaa sugnaanaya makhtaaro waqiila qiil baa wuxuu le dalaaqo waqiila qiil kale wuxuu le dhihaaru way maaragtay xaramtuka iyo xaraaman iyo iskuma raacsan culimadu inay dalaaq tahay lakin madhabka shaaficiyada waa kaxinay waa kinaayo oo niyadiisa la wadiin amase wuxuu yihi taxriima cayniha caynteedii buuba iska xarimay caynteedi yuu iska xarimay wuxuu yihi saacaddan laga bilaabo islaaya xaraam ragga haweenka xataa way ku dhahay ninkaasi xaaraan buu iga yahay waaya ama isagii baa wuxuu yihi islaaya cayntaadaba xaaraaniga
طلاق iyo nikaax iyo waxa ma lafaha wad xaraan iga tag iyada caynteed saas u isticmaal cayna lam tahlu ka waxba xaraan kama noqon xaal tahriim ya iskana ilaahi waa iskana allah ya ayuha nabi lima tuharrimu ma ahalla allah laka tabtaqi mardaana azwaajika waxba iskama xaraan karo maxaa marka laga rabaa كفارة وعليه دوشي سبعة عين آية الضميرة وكذا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كفارة نبى لقرها وعليه وها كفارة يمين باء أو تريدون إن شاء الله ماشي وأنا قرنا إسانة فكفارة إطعام 10 مساكين هاي الله وكذا وحال إذا إن لم تكن هدينا هي نية بهديس تشير في الأظهر حرام عليك تهي ومن سؤال الكبار ويمر ما يعني حرام عليك وهني أنا ما بجرته واي نينكي وي حلال حرام عليك تاي نانتي وحلال حرام عليك وحني انا ماشي ما بتعاو هذا نيه جيرنا يدنا wax furmaya malaha wax xaraan ka noqonayana malaha laakiin maxaa laga rabaa iyadana kafaara laga rabaa والثاني قول كلام الحلاه لغوا waxba kama jiro hadalka xaalinka magac ilaahay kuma badhaaranine maxaa loo haystaa والله هرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلهنا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ويل حقها الله مرة قول هذا ليه وإن قالوا هدوا إلى هذا لأمته هذا الكيلو حكول حرام أيقتها يوحي لمدها يولي لأمته أدون تسكول ونوى عتقها حرين تذن ونيو ثبت عتقه بامارتي يا سنان أو تحريم عينها عين تهذين اسكحرم أولى شيء أو لا نية بمجر فكالزوجة بين لم يتهي مركها كفارة يمين وبالغ روا وح كفر وحي وحراك نقنا يمجر محل روا كفارة يمين وبالغ روا ولو قال هدول هذا الثوب مرضا أو هذا الطعام عنتلا أو هذا العبد أدون كان علي دشينا حرام بيجيه ها فلقوا هبل العتليس حرام ما يقطع هذا الكاس معنا ما يرى كره يا ما لا هو وح معنا أوليه شرعي ما هذا كعب من غيرته و مثلا أنا معنا معنا وواحد ما سوينا واحد ويسكت له هنا ما يسكت سبحانه وتعالى ولو قال هلولا مثلا مهم أما مرة أنا حرام ما يقطع روح المروك الرسول حرام ما يقطع وحلا حرام كمان دون دور ما يسكت وهذا العيال وكرم ولو قال هذا الثوب هذا مثل الثوب مرضى أو الطعام هذا الطعام عنتظا أو هذا العبد أدون كان علي دشي بيجيها حرام ويجيها فلغوا ويحبك متيران وشرط نيته كناية النية شرط وشرط نية الكناية نية شرط وحويان اقترانها إن نية صلاح للستوء بكل لفظ ورد مركوله مثلا الحقي بأهلك كعدي لآل ولتش هذا فريتان عرفت لقب بالله همزة الحقي وكسر بالله إلى بأهلك كافته وضع بس أنت نية دي سويني تشوت هذا يرى أتكلم فقال شو قيل بيدخلوا هذين هذا نية لا يهدينا ويركب بعضنا ودين كلمة هذا حبك من شروها يا حبك ما فرمها وشرط نية الكناية كناية علوم هذا بديدنا وحبك ما فرمها وظاهريا هذا أخذ ما يوزع وشرط نية الكناية كناية النية شرط هذا وحويان اقترانها إن الله يلسطه ونية داس بكل لفظ الله يلسطه ماشي ضدك أن هذا ينين الأولياشي يلويه ضدك هذا الكحرية وإشارة ناضق أنا مقربة وقيل كحولاي شرحت أي مقربة محترم وقيل كحولاي يكفيه كفلا بأولها بالله وهران يلا كفلا مرك هران بالله يا الحقيقة هذه هران سيرة الهيبة جملة بالله سيرة بالله وسلام ونيلا أنت هذا بيوتو ما أنت دم الله معها وايه ماشي وحويان مركا روحها هذي كره هي الروح وآخرين كره هي كأن هذي كريم لا قول ما مرك اللي نشيه وإشارة ناطق من هذي كره إشارة هي تلمان تيسو بضرعة إشارة لغوة من هذي كره ناكتيس كله كروان كفراي هدول ساق كله ما حوالي سقال يا قاعد بسايا حما
mar hadal baa la leeyahay lama hadli kartaa waqiila qiil baa wuxuu leeyahay qiilkana dadka u daran kinaayatu waa kaa hore urama min ragga oo waxba kama jiraan oo markuu calooda gacanta saa ku yidhaha hadduusa afka ka hadlay laakiin qiilku wuxuu leeyahay waa kinaayo hadduu dalaaq ula jeedina muxuu noqonayaa dalaaq hadduusan ula jeedinna dalaaq ma aha wayuctadu waa la soo maaragtay waa la tirsan oo waa la qabsani biishaarati akhrasa midaan hadli karin isaga tilmaantiisa kii hadalku ku xidhnaa ama dhagolanimaha ugu xidhnaada ama carabku ha xidhnaadee midka akriska aan hadalka keri karin isaga ishaaradiisa fil cuquudi waa la qabsan kolkuu wax guntahay heshiis gelayo walxuluuli markuu wax furayo ka baxayo marka loo guurinayo ishaaro la garanaya loogu guurin marka wax laga gadanayo ishaara lagaga gadan markuu furahayo hadduu ishaaro isticmaalo la garanayo iyadoo gabadhiba ka furmaysa mise kama furmayso way ka furmayso waa muctada waa dadka hadalka aan keri karin ilaa 3 xaalo mooyeen 3da xaaleen waxba laga soo qaadaynin waa dhaar iyada hadduu yidhaha waa dhaaran ishaaraan ku dhaaran waxba maarata tilmaam baan ku dhaaran iyada waxba kama jiro waa makhraati furi oo gacmaha taagina qaadiga hortiisa gacmaha taagi oo maarata makhraati baan furina iyadana waxba kama jiro waxba laga soo qaadi maayo waa mida kale waa salaada dhexdeeda haddii wax loogu meheriyo oo maarata wax loogu meheriyo ama uu wax gato ama uu wax sii galo oo ishaarada unay tahay waxba salaadiis ma noqonayso way u jirtaa dhagol makhraati ma galayo samiica baan soo maqlayna soo markay soo samiica in wixii maqlaya lagu hadlay ila meesha hadal baa la kala qoranaya waqti hadalkiina ma qoray ma maqlayo way marka 3da xaalo ishaaradiisu wax dhiba ma keenayso waxba lagama soo qaadayo waa goorma dhaarta iyo makhraatiga iyo salaada dhexdeeda maanta la gacanta saa ku hayo gula xooli xagga oo cayriyo ama waxa iga gad iga soo gad u gula salaadiisu u jirtaa isaga ila salaada hadal bay ku burtaa ficil ka badan way buri laakiin haddaan ficil badan u soo laaymaan salaada ficil kuma burayso way sidaa salaada wuxuu gula wayuctadu waa la tirsan oo maartay waa la biishaarati akhrasa mid aan hadli karin fil cuquud ishaaradiisa tilmaantiisa fil cuquudi xagga maartay heshiisyada iyo wal xuluuli wax kala furitaanka inta wax laga baxo fain fahima hadduu fahmo marka dalaaqahu dalaaqiisa bihaa ishaarada wax ku furay waxaa fahmaya kullu axadin taasa faacilkii fahimaa وهذا صار waxaa tiraahdaa فإن فهم هذا فهمه أو كل أحد روح كستوي فهمها يا طلاقه طلاق الأخرس طلاق ليس بها بالإشارة وحكفره نول فهمها مرجع محيط بنيسا فصريح إشارة وصريح وإن اختص هذا يقول لنا قال بها فهم كإشارة بها إشارة وحيقول الله فضلونا قوة يوم مارك فهمها يفضلك على الروح dhugtale oo maarta sidii hoos wax u fahmay marka maxay noqonaysaa fakinaa dhawaraha nin walba ma fahmi kara moogtahay kolkaa dadka haddii dad gooni ay fahmayaan ishaaradiisu waa kinaaya haddii dadka dhan wada fahmayaan ishaaradiisu maxay noqonaysaa sariixa dhawaro iyo ninka aan hadli karin akhriska ninka hadli karin fakinaa walow kataba marka hadal laga teg hadda qoraal baa loo yimid walow kataba hadduu qoro oo naadiqun mid hadli kara talaaqan buu qoray ولم يوه من النيون كمرة هذين فلقوا تتقارب مركب حقرية يا متهذي ولا سلام تيجي ولا وافقون هذا والقرية مت كاوي كفرت هذو كوي ما دو كلام ورقد مع قريب من النيونين سلام تبي كفرت ويدي ما هذا يصير مركب قريس هذو يرينا يكفر بيسا هذو قرى سوا ما رجالنا يقرأ كفر أكيد سوا إسكاع مسنين يسجن هذو إسكاع غيره سلام وقد كوي عبسيه نينا يسنتين حركة مفروضة فلقوا تايو بهذا سما ولو كتب هذا قرار ناطق منها عن هذا هيا قري طلاقا بقرى ولم يوه طلاقا علماء نيون فلقوا وحبك متراوى وإن نواه هدوه نيون وخلاف فالأظهر قول كحوك بدل المذهب وامحي وقوله قال علماء الحوم نعهيه أحبا كما نعهيه لكن قول الأظهر المذهب نعهيه حال على إنه فرتيس امتحاني وإنه فرق الحسين فرق هي كذا
waayahay qaarkood waxay leeyihiin hadduu ka maqan yahay laakiin hadduuba ag fadhiyo warqad qoro ama maaragtay haniyada ama isniyada waxba kama waxaa uu hadli kareba mogta ayib fain kataba hadduu qoro warqad buu usoo qoray uba ka maqan yahay nairobi kalu jiraaba warqad buu usoo qoray fain kataba hadduu qoro uu yidhaahdo idaa balaqaki hadduu kusoo gaadho kitaabii warqadayda kitaabka waxaa laga wada hadda warqadda aan soo qoray hadday kuu timaado fa anti adiga taariqu waad furan tahay gabadh yahay fa inamaa tadruqu waxay ku furmaysaa bibuluuqi inay akriso waxba shardi ma ahaba warqadda aan kuu soo diray markay ku soo gaadho way kaa furanta hadduu yidhahdo oo warqadda ay soo gaadho waa furmaysaa whatsappka iyo waxyaalaha la isaga qoraya ma ku furmaysa mise kuma furmayso mucaasiriintu isku khilaafaan maxaa isaga waxba qorin iyo wuu qoray iyo waxbaa khilaafaan isaga ma qorin aala kalaa wax qoraysa waxuu gacantiis ku qoray maba jira mumka wuxuu taabtee meel buu riixay qaarna waxay leeyihin maya way furmaysa waayahay fa inamaa tadruqu way furmaysaa bibuluuqi gaaritaankiisaasi ku furmaysaa wain kataba hadduu qoro warqad buu soo qoray waa koo oo wuxuu yidhi idaa qara'ti haddaad akriso gabadh yahay kitaabi warqadda aan kuu soo qoray haddaad akriso walxaal hiya iyaduna qaari'atu mid wax akrin karta ay tahay oo fa qara'athu ay akriso daruqad way furmi wain quri'a haddii la akriyo oo loo akriyaan calayhaa dusheeda falaa fil asaxi ma furmayso tii hore maxay ahayd warqadayda hadday kusoo gaadhay ahayd ama ha akrisamayaan akrin tanna wuxuu ku soo qoray haddaad warqadda aan kuu soo diray aada akriso waad furanta waxaan fiirinaynaa inay iyadu akrisay waxaan kala qaadaynaa iyadu waxba akrisaa mise waa gabadha waxna qorin waxna akrinin hadday tahay gabadh waxna qorta waxna akrisa haddana waad sii fiirinoo ma iyada akrisay mise waa loo akriyey hadday iyadu akrisay waa furantay hadday tiraahdo war furitaan baan ka baqahayaa igu dul akriya ya oo lagu dul akriyo may furmaysaa mise ma furmayso qawlka asaxa ma furmayso lakin qawlka saxiixa weli waa isku mid tan damba waxaa wey wain lam takun qaari'ada waxba ma akriso waxna ma qorto fa quri'a calayha waa lagu dul akriyay tan hadi waa isku mid mogta xaaladeeda qawlka tan iyada way furmi sababta waxaa isku kora waxna akrinin waxna ma qoraynin wain kataba hadduu soo qoro oo uu yidhaahdo idaa goortii qara'ti aada akrisa gabadh yahay kitaabi warqadii aan kuu soo diray walxaal hiya iyaduna qaari'atun ay tahay mid wax akrisa oo fa qara'athu marka ay akriso daluqad way furantay wain quri'a haddii la akriyo calayha dusheeda lagu akriyana falaa fil asaxi ma furmayso ilaa ayadaa wax akrisan kartee wain lam takun haddaysan ahayn qaari'atan mid wax akrisa maba aha oo fa quri'a waa la akriyo calayha dusheeda lagu akriyay ilaa waxba ma akrin karine dalaqat ama daluqad waxa tirahdo waa furantay gabadhaas waa dhaqaaqdeeda والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله خميس ساعة أختار مع الله سنة هاي مركوي قدر بدرس إنه مشر إن شاء الله. خميس